عيدن Soomaaliyeed guul ciidan Soomaaliyeed guul takbiir Allahu akbar takbiir Allahu akbar si garab iyo gaashaan loogu noqdo geesiyaasha ciidanka qaranka ee hortaagan cadowga argagixisada waxaa maanta furinta hore ee deegaanka Janaale booqasho ku soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayna qayb ka ahaayeen ku xigeenadiisa gudoomiyaha marka iyo saraakiil ciidan waxaana si diiran u soo dhaweeyay maamulka deegaanka saraakiisha ciidanka qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ujeedka safarka mas'uuliyiinta ayaa ahaa dardargelinta howlgallada ka dhanka ah khawariita dhiirigelinta iyo garab istaagga halyeeyada hortaagan cadowga firxadka ah ee khawariita gudoomiye Najax iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale dhiirigelin iyo tacsiba ugu tagay ururada 144 iyo 145 ee guutada 14 Oktoobar oo maalmo ka hor taliyahoodu guutada ku shahiiday weerar argagixiso ugu horeyn waxa hadal ka qaatay gudoomiyaha deegaanka Janaale iyo Dhamme Maxamed Xasan Macu oo ku hadlayay afka saraakiisha ciidanka qaranka ee ku sugan deegaanka xalana waa mahadsantiin tacsiga nooga maateen oo idinka aqbalnay waa idinka gudoonnay Allah u naxariisto taliyana qaaliga taliya Nuur Firay waxa waa abaheena oo ahaa kule naga joojimeysa dhimashadiisa waajibaadkii hore noo saarnaa qaranka ah amirtu hore noo fari jiray iyo waajibaadka hore macnaha noo siiyay bartiya ka sii amba qaadeen oo ka sii wadayna dawladnimo dimaan waa ka gudoonnay tacsiida loogu yimid iyo xoolaha noo keenay oo macnaha ciidanku ugu talagalay saddexda colbo oo halkan degan nabad sugidda booliiska militariga iyo admisbo aad ugu mahadcelinayna waana ka gudoonnay gudoomiye saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka dhamaantood gacmaha isheystaan hadafkeena waxa waaye inaan Janaale iyo eeridiisa aan ka difaacno cadowga ummadda Soomaaliyeed aan ka difaacno waaye runtii maanta farxadeena mar soo koobi karo iyadoo marxalada jiraan in gudoomiye aan soo booqato tacsiin ugu imaato taliyaheena Ilaahay naxariista Nuur Firay tacsiin ugu imaato iyo inaad soo booqato deegaanka gudoomiye aad aan ugu faraxsanahay taasna waxay dhiirigelinaysaa maamulka aad magacaawday dawladnimada ka shaqeynaya iyo saraakiisha amniga ciidamada waxay u noqonaysaa dhiirigelin u noqonaysaa gudoomiyaha degmada marka